وقدوميها قولها جوحو مدن كسودو ميديا جريدة وغادينيا لندن waxaan rabnaa inaan wax yar ka weydiino shidaalka ogaadeenaya ay wayaanuhu doonayaan iyagii maartay gobolka ka shanay China iyo maartay ninkan Djibouti horjoogaha waa sidee baad u aragtaan haddaad madaxdii jabhadda wadaniga xoreeyay ogaadeenaya bismillaahir rahmaanir rahiim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad markuu horeysa waxa weeye shidaalka ogaadeenaya وقولا لهي قريو برو سورقل لما أها وقادية قضية وقادية وعلى حلين وتذكرين وقادية أيها لقطشن خيرات كود إلا قاطعي وهو حرارة ويا وحمد رين وقادية يرى حتى يدعو جيرتان كيدو هاي مركا هالكا وكل مالي وي شذلك وقادية سو صاري وحان وقادية أنا وقبيسانية معناه waxaa weeye qof Soomaaliya oo reer ogaadaya oo dib isu jiriya ma jiray macnaheedu ka dhiganta shidaalka markii la soo saaro inaan ummadan iyo dadkii lahaa iyo khayraadka ummadii dhulkeeda iska lahayd aan waxba laga weydiinin oo Ethiopia iyo China ay Djibouti xeero ay ku soo ridin lahaayeen baadii qoriya tiraahdo horta wax suuragal ma waxaan dadka reer ogaadaya u sheegaya Ethiopia laba ujeedo ay leedahay ujeedo waxa weeye khayraadka ogaadaya inay boobto laakiin khayraadka ogaadaya ma boobi karto mana qaadan karto hadayna hal shay sameyn halka shay waxa weeye waa in dadkan bedeli lahaayeen dhulkan qaadan lahaayeen Soomaali dhamayn lahaa in dhulka la keenay la doonayo dadkaasi marka xoolahay ku soo degi lahaayeen iyo xoog wax ku qaban lahaayeen awoodii shidaalkan in looga sameeyo si dadka loo keeni lahaa way ujeedada marka qof kasta reer ogaadaya waa inuu ku xisaabtamaa shidaalka Ethiopia soo saaraysa isagoo odayn la gumeysanayo macnaheedu waxa la sameynayaa waxa la yiraahdo exterminate معناه دمايستر eradication of the Ogaden human being weeyaan qofka insaanka ay reer ogaadaya waa in laga dhameeyo ogaadaya weeye macnaheedu shidaalkeeda ayaa iyadoo sida la soo saaray marka waxaan leeyahay yaa nik walbo adoo xaqiira inta dhiman lahayd adigoo sharaf la dhimo adigoo xaqiira inta ogaadaya ku gubaysan lahayd Ethiopia ku gubaysan lahayd xoolaha ku gubaysan lahaydna hadda difaaco hadda ay xoolahaaga iyo khayraadkaaga ayna haynin haddaad iska difaaci weydo ma markay khayraadkaaga iyo xoolahaaga difaaci karaysa waa maya qof kasta oo reer ogaadaya waa inuu kaco waa inuu gudihi waa inuu xabad waa inuu mataqaanaa geeri iyo nolol waxaan waxa ahaynoo aan idin oranayaa ma jiro dhalinyarada reer Soomaaliya ogaadaya war meesha ka kaco يوربان متقانا أمريكا يا وسترن ويلبات سنتين لكن أنا متقانا خيرات العالم وين كتير حوالي إثيوبيا وحالي هذا سب صحارى شذلك كتير يا وحالي هذا قبي هامبا بقول كشرية تضوات كتير هذا سب صحارى شذلك كتير إثيوبيا وأصيّ يقول لي قال إثيوبيا وحالي بقول كم شذلك كتير وهذه كذي كتير marka dhulkan la isu day maayo hadaan la difaacay ninkii hada marka raja ka hayso horta dhibasho soo diyaar nimanka dadkan hadda jooga qurbaha dhalinyarada ugu badan kaliya social media ku dagaalamaya maxaad ugu baaqaysaan maama Soomaaliya waxa jirta tirada ay dhaaftay geeska qawmo ay dhaaftay ay waxa la sameeyay xoolo soo marku meelaha soo dhayay ay leeyahay laakiin markuu ku soo aaday adigu kula sinmo inaad geeska iska qabato ma ay ma jirto marka waxa weeye maanta waa ay dhaaftay geeska qabe social media iyo kharash bixin iyo wax walba way dhaaftay waxa weeye waa nafta soo come live to ogaadey live ogaadey iyo difaac waa gudoomiyaha golaha dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya xaaji diirane waad mahadsan tahay gudoomiye